بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دhowaada saaxiibayaal walaalayaal waxaan insha Allah halku soo bandhigayaa 10 ama course yar oo kooban oo Microsoft Office Excel maanta ama 10keena koowaad wuxuu ka koobnaan doonaa inaynu ka qaadano hordhac Microsoft Office Excel in aynu workbook environment barano ama buugga Excelka markaas loo soo furo waxa uu ka kooban yahay inaynu barano entering data into Excel sidii xog loo gelin lahaa Excelka iyo selecting data sidii xog loo dooran lahaa inserting and deleting worksheets sida worksheet loo soo gasho iyo sida loo dhilido inserting deleting hiding or unhide columns and rows sida kolomada iyo rooyada loo soo geliyo loo dhilido loo qariyo adjusting column width and row height rowga dhererkiisa inaynu wax ka bedelo iyo sidoo kale column width xajmiga ama ballaarka columnka inaynu wax ka bedelo qurxinta Microsoft Excelka ama formatting iyo sidoo kale waxaanu sameyn doonaa data types format yacna xogta la gelinayo Excelka noocyadeeda iyo qaabkeeda waxaanu sidoo kale eegi doonaa sida calculation with formula loo sameeyo ama xisaab la isugu diro iyadoo aan qaacida la adeegsanayn iyo sidoo kale basic functions oo auto sum oo kale iyo xeelaa inuu sameeyno iyo auto fill feature oo isna qayb muhiim ah inay qaadan runtii uu dheer yahay laakiin si dhaqso ayaan u dulmari doonaa halka iminka waxa ay furan waa workbooki aniga ayaa qoraaladan iska soo dhigtay ku mashquulin halkaas yacni ka soo qaad markuu cusub yahay ama banaan yahay wuxuu ogyahay qaabkaan ayuu ogyahay Excelku sidaan u ogyahay hal sheet ayuu wataa marka aniga waxaan isticmaalayaa kan 10kii ugu dhex diyaarsan yahay insha Allah marka hordhici ayaan ka bilaabayaa yacni Excelka waxa jira spreadsheet programmeska xaashiyaha fidsan ee electronic wax lagu xisaabiyo ayaa spreadsheets la yiraahdo marka program badan oo la xiriir la leh kan oo soo eg ayaa jira sida SPSS oo kale laakiin iyagoo dhan marka la isku daro Excelka kan ugu ballaaran la adeegsado ama sida ugu badan loogu adeegsado yacni dadkana waxay isticmaalayeen ilaa iyo 30 sano u dambeysay throughout this years it has been upgraded with more and more features yani halkiisii muu taagnayn Excelka markasta oo xilliga lagu soo dhex jiray 30 sano dadku adeegsanayeen shaqooyinkooda u adeegsanayeen waxa lagu sameeyay horumarin muuqaaladiisa qaabkiisa iyo formulooyinkiisa iyo awoodihiisaba waxba laga bedelay the best part of Excel is marka qaybta ugu muhiimsan aynu eegnaa ama ugu fiican Excelka waxa weeyaan it can be applied to many business tasks in lagu dabaqi karo ama lagu qaban karo shaqooyin badan oo ganacsi including statistics, finance, data management, forecasting, analysis, inventory, billing and business intelligence waxaas oo iska dhan waa loo adeegsanayo intaas hordhici naga filan ku sii raagmayno waxa xagga inoo yaala workbook environment oo ah marka koowaad inaynu barano deegaanka ama qaybaha uu ka kooban yahay workbook marka sawirkan waxa kaaga muuqda meel ay ku qoran tahay D8 tusaalaan halkaas iminka hadan halka check siiyo Excelku wuxuu ka kooban yahay columns oo kolomadaas ayaa la yiraahdaa columns ayaa la dhahaa marka kolomadu waxay leeyihiin heading ama column head ayuu leeyahay oo laga soo bilaabo A ilaa iyo way soconayaan in doora ay soconayaan haddii aad rabto xagga u dambaysa inaad soo eegto XFD inaad soo eegto waxaad qaban kartaa control iyo right arrow marka waxaad arkaysaa XFD inaad joogto oo u dhigantaa waxa u dhigantaa 16384 column ayuu dhigantaa waxa kale oo jira in aad markaba soo noqon karto oo aad meeshaadii koodi ku soo noqon karto adoo control iyo left arrow dib uga soo noqonay sidoo kale waxaad arkaysaa halkan wuxuu ku leeyahay row marka column wixii tag ayaa la yiraahdaa rowna waxa la dhahaa wixii chief marka wixii chief waxay ku xisaabsan yihiin lambaro ay ku xisaabsan yihiin for example number 1 xaggaas ka soo bilaabmay row weeye rowgaasina rowga labaad kaasina rowga saddexaad saas oo kale kolomadaasina sidaas oo kale ay kolomo u noqonayaan iyaguna waa kolomo kuwa tagtaagan oo kolomos waxa markaa jira oo iyaduna muhiim ah inaynu fahno sidoo kale meeshaas in la yiraahdo formula bar halka yar ee cad for example haddii iminka halkan tiro inagu inkastoo wali aynaan samaynin aynaan gaadhin for example intaas ayaan tusaale u soo qaadanayaa waxaan isku daray saddexdaa tiro waxaad arkaysaa isku daridaas gadaal baan ka samayn doonaa laakiin iminka meesha baan rabaa inaan fahno haddaan iminka 7 taabto meeshii 7 ayaa ka muuqata formula bar marka ma soo dhigay formula bar laakiin haddaan 16 ka tago wuxuu sheegayaa sum isu geynta M13
ilaa O13 ayaa meesha ka muuqata. markaad fahanto column-ka in xarfo lagu tiriyo, rowgana lambaro lagu tiriyo, waxaa ka dhex abuurma cells. meel walba hog yar oo kasta waxaa la dhahaa cell kastana markaa magac ayuu yeelanayaa. magaca for example ka B ayaa xagga kala siman, row numberkiisuna waxa weeyaan 17. marka halkan name box ayaa la yiraahdaa P17 ayaa markaa noqotay name box oo meesha magaca cellka muujiso way. marka haddaan 16 saa u taabto waxa la isu geeyay M13 ilaa O13 oo markaa ah saddexda lambar oo la isku daray 16 markaa. taas markaa iyadu waxa weeyaan columniska iyo rowska iyo formula barka iyo name boxka iyo cellka intaasiba waxa weeyaan meelaha uu ka kooban yahay. halkan hoose waxaad ku arkaysaa sheet tabska waanigii tan cusub oo kale markaa tagto sheet 1 haddaad plus tiraahdo sheet 2 haddaad plus tiraahdo sheet 3. marka sheet 1 way madax bannaan tahay, columniskeeda rowskeeda iyo deegaankeedu waa meel gaar ah. tanna sidoo kale waa meel gaar ah iyadoo xidhiidh laga dhaxaysiin karo xisaabaadka ku jira meelahaas oo iska dhan. waxaa markaa aynu sameynaynaa insha allah sida loo sameeyo selecting data, sida xogta loo doorto ayaynu sameyn doonaa ama loo hareeyo xogta oo ah Morse method ama habka Morse-ka loogu adeegsado hareynta. marka Excel-ka markasta oo aad Excel-ka isticmaalayso haddii aad wax hareynayso, for example xogtaan ayaan hareynayaa, haddaan item-ka tago calaamadaas cadaanka ah ee plus-ta taas waa hadhka ayaa loo isticmaalay. haddaad taa tagto move weeyaan way dhaqaajinaysaa wixii taa afarta falaadhada kala jeeda leh. haddaad tan tagtona waa badin wixii ayay copy garaynaysaa, hadday qaacido tahayna qaacidadii bay ku apply garaynaysaa cellska kale. marka fill baa la dhahaa. marka waxa weeyaan imiga taas uun ayaa select ah. taa haddaad saa u qabato kadibna aad saa u dul mariso waad hareyn kartaa inta aad rabto Excel-ka. laakiin haddii aad calaamadihii kale oo taagan aad ku qabato lefty badhanka mouse-ka aad qabato oo dabeedna la dhaqaaqdo wax kale ayaa dhacaya. halkaas waxaa hab weeyaan. haddii kale waxaad samayn kartaa bilowga range-ga ama qoraalkaaga ayaad tag siinaysaa, shift ayaad qaban, mouse-ka ayaad iska soo dhaqaajinaysaa isagoo xor ah aadan meel lahayn, waad soo dhaqaaqaysaa angle-ka ka soo horjeeda xogtaada ayaad markaa tag siinaysaa. meesha markaa cadaanka ah oo meesha harku ka bilaabmay ama active-ka ah ee markaas active cell-ka ah ayaa noqonaysaa. oo B39 iminka waa meesha name box ay ku qoran tahay way cadaan sababta iyada ayaa laga bilaabay harka. haddaan tan ka bilaabi lahaa oo oran lahaa shift dabadeedna aan taa tagi lahaa saas weeyaan. habkaasi waa habka mouse-ka loogu hareeyo. habka labaad waxa weeyaan keyboard oo keyboard waxa weeyaan intaad timaado meesha ayaa shift qabanaysaa dabeedna falaaraha ayaad ka soconaysaa. falaaraha ayaad markaa marba docda rabto u wadaysaa falaaraha keyboard-ka. marka qoraalkaagii ama daatadaadii data range-gaagii wada hareyn karaysaa si fiican. taasna waa hareynta weeyaan. waxaan markaa u gudbaynaa formatting-ka sida loo qurxiyo. kahor inteynaan laakiin samayn hordhicii waan soo qaadanay oo waxaan ka hadalnay Excel-ka iyo waxyaalaha loo adeegsanayo. xaggan waxaan ku haysanay deegaanka inuu soo baranay formula barka, name box-ka, column-ka, row-ga iyo wixii la mid ah iyo cell-ka. sidii xog loogu qorayo ayaynu sameynaynaa oo marka aan for example rabo inaan xogtaan ciwaan u sameeyo halkaas oo kale ayaan ku qorayaa budget oo kale budget plan. waniga markaad qorto Excel-ka inta run baad oranaysaa ama falaadha ka soconaysaa. marka iminka column A ayuu qoraal ku jiraa laakiin madaxa ayuu la galay halka. macnaheedu ma aha column B waxba kaaga qoran maaha. haddii aad wax kale column B la rabto isagun baad sii gelinaysaa. marka way isqarinayaan. dabadeedna waxaanu baran doonaa column sida column-ka loo balaaray. marka inserting data into cell waa wax iska fudud oo intaad qorto un baad hore u wadaysaa sidaasaad ku samayn karaysaa si fudud. taas iyadoo sidaasaan ku dhaafanaa. waxaa weeyaan sidii loo hareynayay qoraalkana waa anigii soo sameeyey iyadana waanu samaynay. marka waxaan doonaynaa worksheet sida loo soo geliyo Excel-ka iyo sida loo dhiliido inaynu fahanno. haddaan rabo markaa iminka worksheets iminka kan worksheet baa ku jira, tan waa worksheet mid walba xaashi shaqo weeyaan ayaa ii taalla. plus-taas ayaan kasii kordhin karaa. markaan plus iraahdaba xabad baa soo gelay iminka sheetka halkaas soo galay oo mid bannaan. right click baa oran karaa, delete-na waan oran karaa. wadada ugu fudud aan u delete karaa waa saas. marka waxa weeyaan sidii aad u soo gelin lahayd iyo saa u delete lahayd marna plus tan taabo marna iyada un tag warqadda aad delete-ayso dabeedna right click dheh dabadeedna waxaad tiraahdaa delete saas kaaga baxaysaa. waa wadada ugu fudud. halkan waxaan ku haysanaa markaa sidii aad u soo gelin lahayd worksheet.
waxaa meesha iyaduna ku jirta sidii aad u qarin lahayd ama u soo muujin lahayd iyo sidaa u delete lahayd sidaa u soo gelin lahayd column. For example, bishan January, February, March total halkaas ayaa waxaa laga rabaa bishii April inaynu ku kordhino tusaale ahaan. Marka waxaad leedahay column cusub si aad u hesho columnka F ayaad xarafkiisa taabanaysaa, columnka dhan baa hadhaysmaya. Dabeedna halkaas ayaad formatka agteeda insert ka taaban kartaa. Marka xabad banaan baa ku soo gelaysa, markaas aad headingkii aad rabtay siinaysaa. haddaad dhiliidayso iminka columnka bannaan markaad iska saaraysid sidaa un baad u hadhayn kadibna waxaad leedahay delete. hide macnaheedu waxa weeyaan wixii you delete me laakiin qari. tusaale ahaan dadkan alaacagtan oo dhan baa waxaan doonayaa inaan totalka keliya soo daabaco inta kalena ay qarsoonaato. sidaa un baan kolomada u hadhaynayaa, halkaasaan qabanayaa, saasaan u hadhaynayaa markaa kolomada iyagaan la raacaya madaxooda ama xarfahooda. dabeedna right click baan oranayaa, dabeedna waxaan leeyahay hide. markaa totalka keliya jooga, xogti kalena way maqan tahay. dib u soo celintuna wax kale maaha, waxa weeyaan tusaalaan intii aad meesha wax ku qarsoonayeen baa la hadhaynayaa, right click baa la oranayaa, dabeedna unhide ayaa la oranayaa. taas waa sidaa u delete lahayd, u soo gelin lahayd, u qarin lahayd, u soo muujin lahayd ayaynu iyadana ku samayno. column width sidii xajmiga columnka loo ballaarin lahaa. For example, columnka haddaad ballaarinayso labada xaraf dhexdooda ayaa la qabanaya, saasaa la oranayaa. matalankaasa cidhiidha xarafka A iyo B dhexdooda ayaa calaamadaas marka soo baxdo double click ayaa lagu sameeyaa. marka isagaa isla ekaysiinaya intii la rabay. meeshu hadday cidhiidh tahay. For example, magacyadan ayaa meeshu cidhiidh ku tahay. waxaan rabaa inay la ekaato magacyada C iyo B dhexdooda ayaan tegayaa, double click baan samaynayaa. waddo kale ayaa jirta markaa column width-ga lagu sameeyo. waa columnka oo right click la yiraahdo intii la hadheeyo, dabeedna la yiraahdo column width. marka column width-ga halka ayaa waxa la gelinayaa inta aad la rabto. For example, haddaa ka dhigto 30 xoogaa uu kala ballaaranaya. dib haddaad u soo celiso aad ka dhigto intii originalka ahayd 88.43 oo ah inta originalka ah ee marka hore uu yahay. haddaad rabto markaa waddadaasaba ka fudud aad ku samayn kartaa. row height macnaheedu waxa weeyaan rowga 4 intaasuu ballaarkiisu leeyahay. haddii aan rabo inuu ballaadho sidaasaan hoos ugu kaxayn karaa isagana, markaa meel ballaaran ayuu noqonaya. haddaan dib jagjagu siiyo wuu isla ekaysiinaya qoraalka. marka waxaad samayn karaysaa rowga intaad lambarkiisa taabato markuu saa u hadhaysmo ayaad dhan ka mid ku dhufan kartaa. waxaad oran kartaa row height, dabeedna row height-ka ayaad gashanaysaa intaad la rabto. haddaad ka dhigto iyadana 30 wax ballaaran ayuu xoogaa sii noqonaya. dabeedna waxaad leedahay right click, dabeedna waxaad leedahay row height, dabeedna waxaad leedahay 18. markaa inta caadiga saas uu soo noqonaya. intaasi waxa weeyaan waddada aad u bedeli kartid ama adjustment ugu samayn kartid column width iyo row height ayay noqonaysaa. xaggan waxaa ku yaala formatting sidii aad u qurxin lahayd Excelka ama xaashidiisa aad u qurxin lahayd ayaa iyadana noqonaysa. waxa weeyaan qurxintu markaa waddo fudud qoraalka qof walba iska garanaya. ciwaanadaas oo kale haddaad wax ka bedelayso waa inaad hadhaysaa. haddaad qoraalka line ka mid wax ka bedelayso waa inaad doorato. marka for example kan ayaan waxaan doonayay si degdeg inaan yar hagaajiyo. ciwaanka xogtaydu waa ka marka hor yaraan waxaan ugu horeysinay wax la yiraahdo merge and center. marka iga qaritan si warqad gaar ah ay ugu noqoto qaybtan iska qarinay intaan hadhayo right click waxaan leeyahay hide. columnka ruuda xitaa laftigiisa hide garaa. halkaa waxaan ku haystaa markaa xogta noocaas. xogta ayaan waxaan doonayay inaan yar hagaajiyo. ciwaanka ayaan saa u hadheeyay linekaas, dabadeedna waxaan iri merge and center oo halkaan ayay ku talaa merge and center. marka wuxuu isu furayaa qaanadii dhexdaas imanaysaa qoraalkuna. dabadeedna waxaad leedahay qoraalka midabkiisa waxaa ka dhigtaa sidan, size-kiisa qof walbuu garanayaa waad hagaajin kartaa. halkaas waxaa ku jira wax la dhaho shadingka ama midabka hoosta kasoo fil soo buuxinaya. intaa markaad samaysato waxaad u baahan kartaa qaybtan inaad u samayso bottom border. marka bottom borderka halkan baad line colorka iyo line stylekiisa haddaad rabto kaa buuran ee madow saasaad u taaban, kadibna waxaad leedahay bottom border. marka border hoose line yaro madow hoose ayuu samaystay. intaa markaad samaysato waxaad leedahay ciwaanada markaad hagaajinayso ciwaanada gaar baa loo dooran, kadibna waa la hadhaynayaa, waa la weyneynayaa. qof kasta intaas uu iska fahmayaa. waxyaalo badan baa ciwaan ka bedeli karnaa. tusaale ahaan haddaad tagto qaybta la dhaho format ayaa tagtay, dabadeedna waxaad tiri format cells. format cells waa meel wax badan wixii aynu qabanayno oo dhan laga helayo. format cells ama control iyo 1 ayaa la qaban karaa, dabadeedna wuu kuu soo baxayaa.
halkaas waxaa ku jira fontiga oo farta haddaad wax ka bedelayso alignmentka ayaan markaa u socdaa. Alignmentka waxa weeyaan qoraalka directionkiisa inaan kor u jeediyo tusaale 45 degree kor inaan ka dhigo markaa ciwaankii markaa kor buu u kacay saasay kor ugu kaceen dabeedna row height-ka ayaan yar kordhinayaa si uu u muuqdo dabadeedna taasina waxa weeyaan qaabkaas waa aniga qoraalka saa u dhigay. Borderkii baan doonaya inaan ku sameeyo markaa ciwaanka saa ugu hareynayaa ilaa laymanka yaryar ee meesha ka muuqda waa waxbay kala saarayaan excelka laakiin haddii la daabaco warqad cad ayay noqonaysaa marka waa in borderro aan u sameyno meesha ayaad hareynaysaa waxaad ku noqonaysaa format dadna waxaad leedahay format cells markaad tagto waxaad leedahay borderka markaa linekaad rabto hadduu mid buuran yahay outlineka inside-kana haddaad rabto mid dhuuban baa ka dhigan kartaa inside marka warqadaada oo dhan xabad weyn way kusoo wareegi xabad kalena mid weyn ku wareegi gudahana wax ku xirxirmaya ku yareer marka intaa markaa sameeyo haddaan rabo fill xagga hore fill kale waan u sameyn karaa haddaan farta bold ka dhigayo waad garan kartaa dee wixii oo dhan halkaa ku iska yaala qurxinta warqadda saa ugu sii tigaali maayo intaas markaad samaysato halka totalka tusaale ahaan kuuma soo saarnaba oo madahaysid intaas waxa weeyaan warqadda aan yar hagaajiyo wey marka waxyaalaha ku hadhay waxa weeyaan inaad eegto warqadaada bal view-geeda marka view haddaad tagto oo tiraahdo page break view waxa weeyaan waxaad eegi doontaa bal page-kaaga inuu ka baxsan yahay qoraalkaagu marka haddaad page 1 ayuu noqonayaa kama baxsana saxdii weeye si fiican ayuu u fadhidaa haddaad tiraahdo markaa file haddaad tiraahdo print aad tiraahdo preview-gana aad eegto warqadaada qoraalku saas u oolaya intaa yare madaxa yare halkaas ayaa ka maqan halkaas iyadana waxaad samayn kartaa uun dee meeshaad u kordhinaysaa haddaad rabto meesha lineka yar basaa u kordhinaysaa marka linekaas dee wakaa printerka lineka wixii xagga ka xiga printerka ma soo saarayo page 2 buu noqon marka waa inaad printerka linkiisa uu wax ku jooga haddaan iminka file iraahdo dabeedna aan print iraahdo waxa weeyaan warqadii iyadoo dhammaystiran ayaan arkayaa qoraalkeeda intaas waxa weeyaan waddadan ku sameynaynay normal baan ku celinayaa view dabadeedna normal markaan iraahdo waxa weeyaan waxaan doonayaa wixii aan iska qariyay si curriculumkii waxaan raacayay aan u arko meeshaas oo dhan baan hadheeyay right click baan iri unhide ayaan oranayaa marka waxa ii soo noqon doona wixii aan iska qariyo dhan meelahan ay ku qarsoon yihiin right click dabadeedna waxa leeyahay unhide marka wixii aan qariyo waa kuwan marka sidii aan formatting u sameeyay waa qurxintaas ay formatting waan qurxiyay waxaan ku xijinayaa data type format oo ah xogtaada nooceeda tusaale tan iminka halka markaad eegto home taabato waxay ku taagan tahay general inay general iska tahay ay ku taagan haddii marka wuxuu date yahay waa in date laga dhigo hadduu taariikh yahay hadduu number yahay hadduu lacag yahay currency waa in laga dhigo iyo wixii la mid ah time percentage haddii lacagta aad la rabto inay noqoto calaamadda percentage-ka iyo long date iyo wixii la mid ah marka iminka kuwan waa lacagahan ayaan saa u hareeyay gebigoodaba kadibna waxaan iri halkan waxaad ka dhigtaa currency ayaan ka dhigay marka calaamadda dollarka raacday wixii walba saas isugu noqdeen voltna waan raaciyay sidoo kale meel kale ayaa laga soo bedeli karaa oo meeshii formatka wax walba ku yaalaan haddaad tagto format cells dabadeedna number qaybta la yiraahdo markaad tagto halkan ay ku yaalaan date haddaad rabto noocay rabto wixii ku haraysnaa sida uu noqonayo marka currency haddaan ka dhigo iyo haddaan accounting ka dhigo iyo haddaan marka imika currency ay taagan tahay oo currency marka halkaas waxaa la doonayaa markaa in aynu formatka weyn fahnay qaabku noqonayay data formatka insha Allah percentage-kana waxaan ku arki doonaa inuu ka dhigayna de markii xog u eg qayb percentage lagu shaqeynayo inuu soo baxdo taas marka iyadana halka ayaan kaga sii gudbaynaa taana waan iska xidhnay oo data types using calculations without formula waxaa jira waddo fudud oo loo sameyn karo xisaabaadka tusaale ahaan lacagta trainingka ku baxaysa January iyo February iyo March oo kaliya ayaan hareeyay stats barka markiiba wuxuu ii sheegay anoo wax qaacida adeegsan 700 inay total ku yahay saddex lacagood inay yihiin celceliskoodu inuu inta noqonayo ayuu ii sheegay haddaan line kan oo dhan rabo January na xisaabiyo sidaa un baan u harayn halkan un baan ka akhrisan 1386 dollar weeyaan sagaal xisaabood ayaa haraysan celceliskooduna waa 154 halkan waxaan ku haysanaa total markaa si aan markaa taas waxa weeyaan stats barka leeyahay qoraalka la hareynaya dabadna waxa weeyaan waxaad arkaysaa markii jawaabtii xisaabtii haraysnayd halkan waxaan ku haysanaa
wax la yiraahdo calculations without formula marka iyadana waa haray oo dabadeedna ka eeg status barka halkan waxaan ku haysanaa basic functions sidii autosumka loo adeegsan lahaa un baan ka soo qaadanayna functionka sum autosumkiisa oo kaliya inagu qori doona si qurux badan fudud u qori doona aynu arki doonaa laakiin iminka waxaan doonayaa bal inaan total ka soo saaro marka badhankan ku jira wadada ugu fudud markaan ku saari karnaa waxaan leenahay sum markaan u taabto dabeedna enter marka sidaas ay ugu soo baxday wax kale maaha meesha un baan check siisanaya aan rabo jawaabtu inay ku soo baxdo online kaasa dabadeedna waxaan leeyahay our sum dabeedna enter marka taas waxa weeyaan sidii out of sum loo adeegsan lahaa haddaan rabo markaa totaliskan hoosena inaan soo saaro kuwaan waan hareeyay delete baan taabtay kadibna waxaan doonaya inaan isu geeyo January oo dhan markaan haddaan raado our sum intii oo dhan isagaa isku soo qabanaya interum baan raacinaya dabadeedna jawaabtu waan hayaa waxaa jira markaas saas waxa weeyaan sida autosum loo sameeyo wey sida autosum loo sameeyo wey waxaanu kusoo gebagabeynaynaa casharkeena sidii loo adeegsan lahaa autofill feature waxaa jira waxa la autofill feature oo markaa haddaad iminka sidaa u harayso meeshaas waxaad doonaysaa markaa office supplieska computer expenses copying printing iyo wixii lamida inay dhammaan jawaabtoodii soo baxdo marka hal mid ayaa inoo soo saaran waxaan doonayaa dhammaantood inay shaqeeyaan halkan waxaa ku jira markaa fill feature haddaan sidaa u jagsiiyo oo down iraahdo markiiba waxaad arkaysaa jawaabihii oo dhan ayaa meesha ku yaala dabadeedna haddaan tan laftigeeda intaan iyada harka ka bilaabo dabadeedna aan sidan u hareeyo hoosta bal hoostana totalada aan ka xidhayo right un baan oranayaa marka iyadiina jawaabaheedii oo dhan halkaas inoo yaalaan marka sida ugu saxsan aan u saaree saas waa marka autofill feature saasa loo adeegsanayo wadada kale lagu adeegsanayo mar labaad ku soo celiyo si ay revision xitaa u noqoto meesha jawaab ku saarayaan tagay kadibna waxaan leeyahay autosum dabeedna waxaan leeyahay enter markaan iraahdo isla markiiba waxaan ku tegayaa meesha calaamadihii markii hore soo bixi jiray taa waxay ahayd haraynta taasina waxay move oo marka xisaabta meesha laga qaadayo meel kale aad sel kale u wareejinayso ayaa loo isticmaalaa tusaale halka 700 xaggaagii halkaas ay imanaysaa dib ugu soo celi meesha dib ku soo noqonaysaa marka waxa weeyaan tanna waa harayn tan halka tayra ka soo baxda plus tire ayaan saa ugu qabanayaa left click kadibna waan ku jiidaya hoosaan u jiidaya jawaabtii baan helayaa marka jawaabihi oo dhan waa hayaa fill waa hab fudud aad u samayn karaysid wadada kale xaggana aan soo saaro iyadana waxaan iri sidaa un baan ugu dhuftay dabadeedna halkaan aan imanayaa sidan un baan u wadayaa marka iyadana halkaasaan geeyay marka mid walba totalkeeda waan hayaa wadada kale ee kasii fudud ee aad filka ku samayn karto awra fill format ku samayn kartid for example taa ayaad soo saartay enter kadibna iyadun baa jagsiin plus markii saa kugu soo baxdo double click israac ayaa siinaysaa marka double click samayso markiiba kuu soo baxaya jawaabi hoos ka dhan ilaa hoosta dadin sidaan baad u jiidi wadadaas marka waxay noqonaysaa iyadana autosum sidii loo adeegsanayay iyo sidii loo adeegsanayay autofillka iyo autosum labadiiba sidaan u adeegsanayay okay aad baa mahadsantihiin uu dheer yahay casharku inkastoo very basic yahay insha Allah waxaan u soo gudbi doonaa casharo critical muhiim oo shaqada la xiriira aynu soo gudbi doonaa hadii Allah idmo marka intaas basical waxaan maleynayaa qofka inay soo yar qaadi karto qofka ku cusub kii kalena waxay u noqonaysaa revision halka waxaan markaa ku soo gabagabeynayaa casharkeeni day 1 aan ugu talagalay Microsoft Office Excel waxaan access idin siinayaa runtii videogan oo aan diyaariyay videogan aad arkaysid waxaan kaga hadlayaa sida loogu sameeyo Microsoft Office Excel attendance sheet loogu sameeyo daabac karto wanaagsan loogu sameeyo marka insha Allah bal qof kasta ha isku dayo isagoo ka faa'iideysanaya casharadeenna halka ku soo qaadanay column width iyo row height iyo merchant center iyo formatting iyo wixii lamida iyo borderiska intaba isagoo ka faa'iideysanaya inuu soo sameeyo xabad xaadirisa oo ama arday lagu xaadiriyo ama shaqaale waxa doontaa noqoto iyadoo hadhowna qaacidooyinka lagu xaadiriyo aan insha Allah raacin doono videogan ayaad markaa ka heli kartaa support ahaan ku noqon kara inkastoo xilli hore yahay aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu